Sawir qarsoodi ah oo leh dibno tolan ayaa laga helay goob 1,100 sano jir ah. Goobta qadiimiga ah ee Karahantepe ee koonfurbari Türkiye ayaa soo bandhigtay helitaano cusub oo iftiiminaya nolosha iyo caqiidada bulshooyinkii ugu horreeyey ee Neolithic. Waxyaabaha la helay figurine dhagax ah oo leh dibno tolan, wejiyo dhagax lagu xardhay bead madow oo serpentinite ah oo leh 2 weji oo muujinaya shucuur kala duwan. Archaeologistaha Necmi Karul ayaa sheegay in tirada sii kordhaysa ee sawirrada bini'aadamka ay muujinayso isbeddelka bulshooyinka. Markii bulshooyinku degeen, waxay ka fogaadeen dabiiriga waxayna bini'aadamka iyo khibradiisa u dhigeen xarunta caalamka. Mashruuca Stone Hills waxaa la bilaabay 2 eber wuxuuna ka kooban yahay 2 goobood oo ku yaal gobolka Sanliurfa. Waxaa ku jira goobta caanka ah ee Tepe oo ah dhismaha megalite ugu dada weyn ee la yaqaan. Mashruucan waxaa loo arkaa caasimada Neolithic ee dunida. Aragtiyo cusub oo ku saabsan bulshooyinka horele Alare German Archaeology Institute ayaa sheegay in helitaanada cusub ay caqabad ku yihiin sheekooyinka hore ee ku saabsan kala guurka ugaarsiga iyo ururinta bulshooyinka. Degan, dhisme kasta wuxuuna siinayaa muuqaal yar oo nolosha qof ah. Lakab kasta oo aan qodnaa wuxuuna dhowaynayaa qofkaas. Bulshooyin abaabulanka dib ira aagee, deegaanka ayaa noqday mid bacrin ah, taas oo u ogolaatay bulshooyinka inay si joogto ah isu quudiyaan. Tani waxay keentay kororka dadka iyo horumarinta degsiimooyin joogto ah. Alare ayaa tilmaamay, markii dadku soo saareen wax ka badan baahidooda, waxaa bilaabmay kala duwanaanshaha hodan iyo sabool, bilowga hierarchies bulsho. Kala duwanaanshaha dhaqanka Karahantepe, sawirro bini'aadam ayaa badan. Tepe, sawirro xayawaan ayaa ka muuqda. Tani waxay muujinaysaa in bulsho kasta ay si gaar ah u matashay deegaanka ay ku noolaayeen. Saamaynta maanta helitaanada cusub waxay beddeleen aragtida gobolka oo hore loogu yaqaanay meel uu Nabi Ibraahim ku noolaa. Hadda, goobaha qadiimiga ah waxay soo jiitaan dalxiisayaal kala duwan, ma aha oo keliya kooxaha diinta.